xaaladda bulsho tan siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee jamhuuriyadda Soomaaliya waa mid hoos u sii dhacaysa sanadba sanad ka sii dambeeya. Bulshada Soomaaliyeed waa bulsho kala daadsan, bulsho qabiil u kala qaybsan, bulsho aan abaabulnayn, bulsho laga faa'iideysto, bulsho iscolaadisa tartanta oo aan wada qabsan, bulsho aan wada shaqaysi iyo wada tashi lahayn, bulsho aan daryeel haysan, waa bulsho aan nabadgelyadeedu sugnayn oo siyaasad, qabiil, diin, tuugnimo iyo xadgudub shisheeye inta wax loogu geysto. waa bulsho gaajo iyo qax joogta ah ku jirta, waa bulsho aan haysan adeeg dowladeed sida caafimaad, waxbarasho iyo shaqo abuuris, bulsho raashin dhacay, daawo dhacday iyo wax kasta oo adduunka mamnuuc ka ah lagu soo daadiyo suuqyadeeda, xaalufinta dhirta, ciribtirka ugaarta iyo nabadguurinta dhulka xawle ay ku socdaan iyo waxyaalo kale oo badan. siyaasad ahaan dowlad qaran oo kalsooni buuxda ka haysata dadku ma haystaan, dalkana kama jirto. dowlad goboleedo qayb iyo xukun u dhisan ayaa dhisan, kuwo kala goynta dalka mowqif ka dhigtay ayaa dhisan, xagjir diineed oo dibadda laga maamulo oo leh ulajeedo lagu ciribtiraya qarnimada Soomaaliyeed ayaa jira, wadaad madax laga haysto, shisheeye raba in uu boobo kheyraadka dalka, iyo sukeeye calooshiisa u shaqaystayaal ah oo maaragtay waxba aan dan u wadin dadka ayaa hormuud ka ah siyaasadda dalka. go-aanada siyaasadeed ee dalka ma aha mid gacanta ugu jira dadka Soomaaliyeed. dhaqaale ahaan kheyraadkii dalka ee macdan, gaas iyo batrool lahaa shisheeye ayaa gacanta loo geliyey, kalluunkii dalka shisheeye ayaa gacanta loo geliyey, dekedihii dalka iyo ribooradii waxaa maamula shisheeye, dadku shaqo ma haystaan, dhaqaale xumada awgeed faqri badan ayaa jira. inta ay siyaasadda dalka horboodayaan shisheeyaha, kooxaha qabiiliga ah iyo kooxaha xagjirka ah, xaaladahan inay sii xumaadaan maahane ma soo hagaagayaan. shisheeyuhu ma xallin karo arrimaha gudaha dalka, waxa xallin kara oo keliya dadka Soomaaliyeed. fargelinta siyaasadeed, midda military iyo midda dhaqaale ay dalka ku hayaan ma aha wax xal keeni kara, waa wax xaaladda sii xumaynaya. fargelin baaxad leh ayuu dalka ku hayaa shisheeyuhu. ma jiro isbeddel siyaasadeed oo muujinaya inay xal la doonayaan Soomaaliya. kooxaha qabiiliga ah xal lagama sugi karo, waayo kala qaybin tartan ayaga u dhexeeya sidii ay shisheeyaha ula kala shaqaysan lahaayeen ayaa u muuqda. xal in dalka loo helo qorshaha uguma jirto. dowladda federaalka loogu yeero ayaa ugu horeysa kooxaha qabiiliga ah. sida ay u muuqato way ku fashilantay inay dalka ka hirgeliso dib u heshiisiin, soo celiso dowladnimadii, shisheeyaha kala wareegto nabadgelyada. waxaa kaliya ee ay qabatay sidii loo doortay 2017 waa inay kheyraadkii dalka ku wareejiso wadamo shisheeye iyo inay dano siyaasadeed oo shisheeye dalka ka fuliso. kooxaha qabiiliga ah waxaa ka mid ah kooxda la baxday Somaliland. waxay u dagaalamayaan kala goynta dalka iyo curyaaminta midnimada siyaasadeed ee dadka Soomaaliyeed. qorshaha uguma jirto in xal qaran la helo iyo in ay wax ka qabtaan waxyaalihii ay dadku ka gadoodeen, gaar ahaan dadka degan gobolada waqooyi oo ahaa dictatoriyad, musuqmaasuq iyo eex qabiil, xasuuqii ay ciidankii qaranku u geysteen shacbiga, dhaqaale xumada jirtay waaga, aqoonta oo la gaarsiiyo meel kasta siiba jaamacadaha, iyo cadaalad iyo adeeg buuxa inay dadku helaan. kooxaha qabiiliga waxaa ka mid ah Puntland oo u dagaalamaysa inay noqoto gobol madax bannaan oo ku dhisan qabiil, iyadoo wiiqaysa awoodda dowladda dhexe. xaaladda nabadgelyo ee dadka degan gobolada bari, nugaal iyo waqooyiga mudug inay wax ka bedelaan iyo inay cadaalad buuxda helaan oo dowlad qaran la soo celiyo qorshaha uguma jirto. kooxaha qabiiliga ah waxaa ka mid ah galmudug, hirshabeelle, koonfur galbeed iyo jubbaland oo ay dhiseen urur goboleedka igad oo ay hormuud ka yihiin Itoobiya iyo Kenya. waxay u jiraan oo keliya inay wiiqaan awoodda Soomaaliya, lana abuuro gobollo ka xoog badan dowladda dhexe oo codsan kara haddii ay rabaan inay dalka ka go-aan, taa oo u sahlaysa qolo walba oo dan ka leh Soomaaliya inay qaybiso oo xukunto ummadda Soomaaliyeed. kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab qorshe qaran ma wado, waxay wadaa qorsho caalami ah oo aan quseyn dalka iyo dadka Soomaaliyeed. qorshahoodu waa in la ciribtiro jamhuuriyadda Soomaaliya oo lagu daro dowlad islaami ah oo ay qorsheynayaan inay dalka ama adduunka ka hirgeliyaan iyada iyo kooxaha ay la shaqaysato. waxyaalo joogto ah oo geeri iyo dhaawac isugu jira ayaa dadka ka soo gaara qaraxyada joogtada ah ee ka hirgeliyaan dalka gudihiisa. waxay sabab u yihiin in dalka ciidan, siyaasad iyo dhaqaale ahaanba lasoo farageliyo. dhammaan kooxahani
waxay sabab u yihiin xaaladda sii xumaanaysa ee bulsho siyaasadeed iyo tan dhaqaale ee dalka sii jiritaankoodu wuxuu suurto gelinayaa inay sii xumaadaan xaaladahan oo meesha ay joogaan maanta meel kasii hooseysa ay gaarsiiyaan waxaa arrintii wax looga qaban karaa inay dadka soomaaliyeed u midoobaan isuna abaabulaan inay xaaladaha bulsho tan siyaasadeed iyo mid dhaqaale ee dalka ka dhaqaajiyaan meesha ay joogaan oo gaarsiiyaan meel ka fiican waa inay shacbiga soomaaliyeed wax ka ogaadaan oo mowqif cad ka qaataan 11 qodob oo hoos ku xusan ee aan soo bandhigi doono mid usoo bandhigi doono marka hore si ay xaaladahan wax uga qabtaan 1 colaadda sukeeye 2 qabiil iyo qabyaalad 3 kooxaysi diineed iyo xagjirnimo diineed 4 danta guud 5 midnimada jamhuuriyadda Soomaaliya 6 kheyraadka dalka 7 madax banaanida Soomaaliya iyo arrimaheeda gudaha 8 dowlad 9 isku tashi 10 dhaqaalaha 11 dib u dhiska iyo horumarinta dalka Thank you.